handadaadana waxay ku soo dhacaysaa marka qaarkiisa aan filayaa message lagu soo diro lagu handada way dhacdaa Soomaha waxay social media waxyaalaha aan la yaabay waxa kamid ah wariye ahow qof sheekh wadaad ahow مثلا macallin ahow qof wax soo gudbiya hadaa tahay intaas handada ku timaada marka handadaadaha tusaale ahaan way yimaadaan sidoo kale laakiin handadaha kugu yaab badan maxaa kamid ah tusaale ahaan ku soo dhaca مثلا waxa kamid ah barnaamijka waxaan ka hadda maalin dhow barnaamijka aan soo jeedinay kii ugu dambeeyay oo soo qabto Freemason ka xarunta la yiraahdo antagay nin baa cod ii duubay igula Freemason ka tagtay ayaa ku shaqaysta gaal baa tahay mushrikiinta u adeegta tolbeele hadad joogi lahayd Soomaaliya maanta su'aashaasi dabcan way qoran tahay laakiin ku soo si kala ugu dambeysay waxay kaloo mararka qaarkood ay cod ku soo duubayaan ama qoraal ku soo dirayaan oranaya adigoo dhul gaaray jooga baad moodaysaa inaad aamin tahay laakiin meel kastoo joogtay oo kugu imaan kara I don't know إن الشباب يهين I don't know ده إسكان أكثر برنامج دعوة يهين إن الشباب يهين الله أعلم لكن حل واحد حقيقة واحد أنا الشباب اسمه جعلي وحنا اسمه جعلي دين تاني يشعر دجاني يشرف تاني بأفضل دوغان أنا أيوة مركب علبانا أنت كتبت كيني صح أوكي سؤال تي ماشي حد يتعلم بخدين تلحد إيش هادين تا ماشي وده كوس عبسنت ماشي أسي واقع شيء وحن أركيني على مده اللي يقاني إيش هادين تي دتك عاد بده meeshaas ay kugu soo gashay inaan gasho hadaadan la shaqeyn su'aal wanaagsan haye meeshaas waa saddex dabaq way gurigaas su'aalahan kala aan noqon si adiga u adkeynayso xaqa sheekh waa wariye ka dhacay weey qaralaabsi xaruntu waa saddex dabaq weey dabaqa koobaad cid walba gali karto waa albaab iska furan xilliyada ay shaqeeyaan hadaa tagtid day kartaa waa qaybtii hoose dukaanka dharka lagu iibinayo bugaagta ay yaaleen oo tusay weey laakiin markaan qaybtaas ka soo tagay baan si lama filaana aan ku talagelin baan waxaan fuulay dabaqii labaad baan markaa waxaan ka soo duubay wax aan loogu talagelin anigu inaan duubo inkastoo markii aan duubay kadib aan u sheegay ayagana ay dhaheen mar dambe ha u noqonin bulshada Soomaalida baan la wadaagay marka waa meel qof walba u tagi karo laakiin waxaan jeclaan lahaa qofka halkaas tagayo soo booqanaya babisku sababta u tagayo inuu og yahay diintiisa aasaaska diintan inuu yaqaano oo ah waxyaalaha qawaacida diinta ay ku taagan tahay ee gaar ahaan tawxiidku ku dhisan yahay hadda calan yar oo habba la isaga ka ciyaarayo diinta soo baro ma sha Allah su'aashan waxay ku saabsan tahay shahaadka ama shaqada ama faahfaahin shahaadka xagga Soomaalida ama shaqada keed aragta inuu ku badan yihiin waxaan dhihi lahaa su'aal adag weeye because dadkii oo dhan lamaada kulmeen marka laakiin intaan anigu ogahay shahaadka dadka ku nool doonaya inaysan shaqaysanin cidii shaqaysatana caaya horta shaqaa sharaf leh waxaan arkay niman dhalinyaro ah oo 2 iyo 3 maaqan waxay ahaayeen burcay waxay ku beereen strawberry dhulkeena lagama yaqaano niman shaqaysanayeen nin qadar dirir oo khiyaar halkan ka tegay baa soo buubay bay shaqaysanayeen waxaan kaloo aragnay nin kaloo shaahi dhabarka u saaran shaqaysanaya xaragti hooyo oo cunto iibinaysa marka anu dadkaas way dadka aan jecelahay inaan dhaho dad shaqaysta karti badan meel kastoo Soomaalidu tagtayna waxay ka beeraan dhaqaale laakiin qayb yar waxa jirta dadka shaqaysana waa eedeeyaan ayagoo shaqadina ku noolaad barabaan marka shahaad sharaf ma lahan karaamo ma lahan baryada badan waa la isku nacaa shahaadka marka meeshan su'aal haddaan ka keeno tuugsi miya mise ma aha waa tuugsi casri wey okay reer magaalka ay qaan wasa su'aashan waxay tahay iskuulka iyo dugsiga garaacid ahaan marka ay noqoto adiga ahaan labadaba waad soo martay yes kee garaacidda badnaa kee si fiican ku soo garaacay macalinka quraanka saddex macallin quraan baa soo martay mid Sheekh Shariif baa loo oran jiray jaranjarada caga weyne ee dabka hoostiisa ku taala masaajidka yaala ayuu dhigi jiray Ilaahay caafiyo mid kale Sheekh Macallin Muxtaar baa la hadda uu nool yahay xamar buu joogaa mid kalena isla degmada Howladaag meel kamid ah ay ahayd yaraanteedii kaas uu garaacay markuu dilkii iga badiyay gambar baan qaatay aan ku fadhiyay hoob bariiska ay tahay iga badiyay waa carooday markii xanuunka iga batay laakiin dad waxaa jira macallinkii dugsiga quraanka ay xurxumeeyay ama idilay ama akhlaaq xumo iyo loo kacmay diinta cara kula dhaca aniga way ii kala soocan tahay macallinka xumaantiisa iyo diintan xaniifka ee wanaagsan ee ciziga iyo sharafta oo wax lagu doorsaday meel la tuura aan lahayn macalinkaas gambarkan ku dhuftay hadduu nool yahay macallin inaad in badan garaacdo quraanka xifdiyaan ka jeclaan lahaa maanta 100 sano jiro garaacitaankaaga sharaf iyo karaamo lahaa
allah ku ciseeyey laakiin ciyaalka la garaacin hala soo dhaweeyo gaar ahaan haatan waqtigaan aan noolnahay aad iyo aad dadaa waxay marmarsiyo marka qaarkiisa ka dhigtaan macallinaa isoo dilay sidaanay tahay kadibna yani diintii ay macallinka xumaantii uu ku sameeyey ku dabaqayaan ayagoo marka marmarsi aga dhiganaya islaamka waxaa qaba meel kale aan kaa tuso haddii macallin sayniska ama xisaabta dhiga adoo ku fiican uu faraxumeeyo ama uu ku diro sayniska xisaabta ma nacaysa waa maya maasha allah so sayniskaas ma nacaysid so marka shaksi noloshii ka dhacay diintii ka fogaaday moodaya dhaldhalaalkan iyo laba qof oo ajnabi oo geesaha la iska dhigo hameenkii laga yaabo inay kaniiniyaal ku seexdaan oo naftoodii ka maarala waa islaamka caynaya islaamku waa the world the fastest growing religion diinta dadka ugu badan ay soo gelayaan weye aniga adigu haddii aan ka tagna ilaahay nooma baahna marka meel la tuura mala diinta islaamku sunnada waa yar tahay iyo waa laga tegi karaa malahan meel la tuura malahan qofkii ilaahay qalbigiisa uu geliyo unbaana garan kara oo aan haysanin namcada ilaahayna siiyey maasha allah su-aashan dad badan oo soomaaliya isweydiinaya sidoo kale madaxweynaha mustaqbalka halkuu ka yimid madaxweynaha mustaqbalka waa arrin social media laiga yaqaano waa sax marka waa kaftan bay iga tahay sax dad badan laakiin ku dhaha dad badan baa dhaha mararka qaarkood waxaan idhaahdaa haddii qof uu aan sarano madaxweynaha mustaqbalkeena waa iska xanaaqaya maxaa yeele adna waxba kaa dhimi maysa anna waa ku farxaya laakiin ilaahay waxaan ka baryaya inuusan madaxweyne iga dhiganin because ma rabo in ilaahay qiyaamaha isoo hor istaajiyey intaasoo qof oo kalarka igu dhegan marka allah ka magangalay 100 jeer oo shaqooyin dowladda soomaaliya laga yeeray dowladihii hore iyo kuwa haatan jooga qaarkoodba ay kuwii u dambeeyeyba anaa iska diiday sababtaa u diidan waxay tahay mas-uuliyadda ugu weyn oo isaaran waxay tahay caruurtayda soomaaliya dad fara badan oo kale raba inay dhisaan baa jira anuu halkaa anoo jooga ka qayb qaadanaya dadkeena iyo dalkeena inay qurux badnaadaan laakiin allah ka magangalay madaxweyne marka ma diidaysid magacaasi dadku ugu yeeraya may soo badiyo please soo badiyo okay su-aashan waxay tahay ayadana shaqadii kugu adkayd aad qabatay kuguna dhibka badnayd dabcan maxay tahay shaqadii igu dhibka badnayd aan qabto waxay ahayd 1994kii waxaan ka shaqayn jirnay warshad aada u dhib badan oo habeenkii la soo jeedo oo 2 geniya bar la isa siinayo lacagtu qiimay lahayd saacaddii oo kadeed ah oo boqosyo lagu gurayo cunto subaxiina iskuul baa aadi jiray marka anoo ahaa furdiisan iskuul baa aadi jiray habeenkiina shaqayn jiray maxaa yeelay dad baa naga dambeeyey mas-uuliyad inaan saartay weeye qofka soomaaliga waa inuusan dawarsanin dhulka xaar haddii lagu yihahdo waa inaad xaartid intii lagu siin lahaa cayr maasha allah dabcan hal su-aal ayaa ugu dambeysa biidn illahi taala kusoo xiri doonaa aada fudud fudud insha allahu tacaala su-aalahan run ahaantii waa su-aalo marna haddaad si u aragto ama u fiiriso xoogaa si u adag qaarna fudud sababta waxay tahay intaba waxaan doonaynaa ujeedadeena ay tahay tacliin ahaan mujtamacana soomaaliyeed inay wax ka faa'iidaystaan maxaa yeelay waxaa tahay dabcan weliye intaa muddo ah ku jiray social mediaha dabcan hadda iska cusub laakiin warbaahinta ha noqoto khibrado badan intaasoo madax ayaad wareysatay oo afrikaan caddaan soomaali intaba isugu jira su-aashan marka dabcan way fududda haddii si loo fiiriyo marka aad isu barbar dhigto waraysyada dadkan kale khalaad markaad waraysanayso iyo soomaalida keed u aragtaa waraysiga inuu fudud yahay ama uu adag yahay kan soomaaliga adag kan soomaaliga wuxuu adag yahay markaad qof aada wareysatid siyaasiya maalan kasoo qaad ama horay siyaasadda ugu jiri jiray ama muhiimad xukun muhiima markaa ahaayeen aada weydiisid waxaanu maxay u khaldameen ama waxaan maxaad u sixi weyday waxaa jira dad soomaaliya u arka ninkaana inuu yahay ree hebel adna aad ree hebel tahay garaadkaas aada buu u liitaa waa fadhiid meelna uma socdo waxay diidan yihiin in laga xisaabtamo master hebel laakiin waa dadka sacabiya markii nin aad aniga isku qoys aan nahay aan wareysanayo yidhaahda wadani weeye su-aal fiican buu weydiiyey laakiin marka adeerkiisa la yidhaahdo adeer xoolahan hantidan soomaaliyed xaggee ku dhacday qofkan maxaa saas loogu galay saan maxaa loo sameeyey qaranka soomaaliya maxaa loo duminaya markaad tidhahdid aduu ree hebel baa tahay dadkaas waa in yar oo minority oo aada u kooban laakiin way cod dheeriyi soo ma garanin laakiin dadka waaweyn waxgaradka iyo dhallinyarada wadaniyiinta waxay diyaar u yihiin in qof kasta su-aasha adag la weydiiyo oo ayaga meesha xoq cuncunaysa loo xoqo marka haddii aan intaan soo hor fadhiisto qof mas-uula su-aashii aan la rabi aana weydiinin oo su-aalo ka duwan la weydiiyo oo la yidhaahda su-aalaha saxaafadda u taqaano mikrofoonka iyahay maxaa idiin qabsoomay xaaladiina ka warrama waa dadaasheen wadaad furteen xaggaa dhisteen waxaasoo dhan waa fiican yihiin laakiin waqtigooday leeyihiin
marka qofkan aad wareysanaysa waa cadaaladna u samaysid waxay qabteenna aada soo bandhigtid waxa ay qarribeen oo khiyaanada qaran ah oo dhibaatada ah oo dhiigga daadanaya lagu fashilmayna aad soo bandhigtid 3 tusaalaan ku siin karaa 2015 ra-iisul wasaarihii Soomaaliya oo marka hore oo markaas ahaan jiray waxaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas nin khiyaaro aqoon-yahana siyaasi ah ayaa wareystay su'aalahan weydiiyay waxaa kamid ahaa maamul goboleedka Puntland wiil gabooyaa ma ka noqon karaa madaxweyne waxaa kamid ah su'aalahan weydiiyay حق من ولا ينو كنقض مال والبابا هي قبربا يقولوا هذا تين قبلها ما قالوا الحين وارنتها سي حاجه مساله خلافيه طبعا لكن ماشي اسكلين وقارنوا يقولين قارنا ما وقال لكن طبعا اوكي صح بدل محي قربتا فدراليزم او كو كلو غدونت صح سؤالها ويدي كواسي هي صح دب ان اقانو او مانت سياسده كجرا سو وعي او له حنبلي عبد الحفيد Soomaali baa tahay wadani baa tahay qabyaaladiisa ma tihi صح waxaan waraysi ka qaaday inkastoo dad fara badan ay ka qayb qaadanayeen taliyihii hore sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Sanbalosh su'aal baan weydiiyey aan u arkay anigu markaas inay tahay in su'aashaas la weydiiyo mas'uulkaas صح dadka ay dabcan rabeen yani ardigiisa kuma ciyaarin sharaftiisa kuma ciyaarin karaamadiisa kuma ciyaarin qalbi dhagax nimankii dhiibay aeroboortka kula kulanteen aeroboortka dhiibay ay muhiimadda aniga su'aashaas ay lahayd waxay ahayd barita adiga lagu dhiibayaa baritana qof kale dhiibaya dadka Soomaalida laba ay u kala jabeen team yar oo warbaahinta ku jira oo ayagu su'aashay weydiin kari waayeen marka adigu weydiisid kugu eedeynaya iyo bulshada Soomaaliyeed oo leh alla ilaahay wax wanaagsan bay ahayd in la weydiiyo mas'uul Soomaaliyeed maalin baa imaan doonta aan weydiin doono mas'uuliyiintii kale oo dalka soo maray xilligaas ninka dhibaatada la gaarsiiyay marka shakhsiyad aan waraysiyo noocaas ayaa jira marka waraysiyadii waxay dhalinayaan wanaag iyo falcelin labadaba labadaba diyaar baan u ahay in la yiraahdo waa khaldan tahay diyaar baan u ahay oo khaladkayga aan qaato wixii aan ku saxsanaana day waa waajibkayga gudanay in la igu amaano ma lahayn su'aasha haddii dib u soo noqdo waliba Sanbalosh waxaan siiyay fursad dahab ah haddii wii ka hor buu yiri aniga hal cafiyo qalbada qaybtan ka qaatay hadduu labadan nin sheegi lahaa silsilad baa furmi lahayd maanta wali afka ka xiran oo ninkaas Soomaaliga cidii dulmiga ka gashay ogaan lahaa siyaasiyiinta Ingiriiska waxaan waraystay 3 ra'iisul wasaare Ingiriis Theresa May gabadhii loo oran jiray Boris iyo David Cameron oo laba jeer waraystay kuwaas way sahlan yihiin waxay u sahlan yihiin Soomaaliya lugta kula jirtaan maxay ujeedadiinu tahay ujeedadii ku sheegayaan follow up su'aal baad weydiinaysaa laakiin asoo koormaya reebel baa tahay iyo tuulo hebel baa ka soo jeeda shaqadiisa ma ahan Soomaali baa tahay idaacad baa u shaqeysaa su'aashaas weydiisay waa ka jawaab marka kuwa ajnabiga ayaa wanaagsan ambassador fara badan UN taday online iyo kuwa Ingiriis oo waraystay aad bay nooga saaran tahay laakiin muhiimaddu waxay tahay qofkaad wareysanaysid su'aalaha bulshada ka dhex buuxay weydii mikrofoonka waayo waa khibrad xagga arintaasi aad u wanaagsan weydiinka siyaasiga kaliya waxa uu asaga rabo laakiin weydii bulshada wax ka buuxay ma sha Allah waa arin cajiib ah run ahaantii su'aalahayga ayuu iga dhamaaday oo inta ay ahaayeen ayaa dabcan arintan waxay igu dhalisay hal su'aal hadda aan qortay oo video aad duubtay ama cid siyaasi ka duub ama adiga barnaamij aad soo diyaarisay ha ahaato ma kugu dhacday in qofkii ama dad ay ku dhaheen waa inaad ka saartaa haddii kale balaya dhacaysa ma ku soo martay waxaa jira maya in fact saas ima soo marin laakiin waxaa jira barnaamijyo mararka qaarkood la joojiyo aan la sii daynin ma raba inaan macluumaadkaas hadda dhex galo oo waxay keenaysaa waa mawduuc laga soo tegay laakiin nuxurka haddaan kusoo koobo waxaa jiray hadda ka hor waxaan waraystay shakhsi aan isleeyahay ninkaas wax badan baa ku jira lagama faa'iidaysan hadliya Cabdisalaan hadliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya su'aalaan weydiinayay su'aalihii markay dhamaadeen iyo waraysigii waxa u xirnaa wali mikrofoonkii waa dadku way kacay waraysiga dhamaada anagoo waraysiga dhamaanay oo isalaanay uu mikrofoonkii la kacay markuu hadalkii dhameeyay waraysiga dhamaaday wuu yiri haddaan ogaan lahaa inaad dhib badan tahay kuma imaan lahayn inama sheeginin يعني كل سؤالان ده ويدين سؤال ويدين وحي هي وحن كويري مدحنا الصوماليين markay Ethiopia ka hadlayaan ogow xilliga TPLF Ethiopia ay xukumaysay maamul goboleedyada loo yeeranayay waxa la doonaa laga sameeyay in badan wulina way socotaa iyadoo wajiyo fara badan leh marka waxaan weydiiyay waxaan ku yiri maxay Ethiopia Soomaaliya wala dhaqantaa sidii dawladda ayada haysato u taliso muwaanan qaran ahayn muwaanan dhig uma Soomaaliya loo soo shubin qarankan wuxuu yiri Ethiopia waa walaalaheed marka ku yiri marka leedahay Ethiopia waa walaalaheen yaa adigu u hadlaysaa isii qofka daawanaya qalad buu u fahmay
wasiirkii arrimaha dibadda weeye see u dhahaysaa yu noo hadla macnahaygu waxay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda adigoo ah xaq uma lihid in xaqa ummadda soomaaliyeed la duudsiiyo laakiin macnahaygu maahay wasiirkii arrimaha dibadda tahay annaga nooma hadlaysa wasiirku soomaaliya matalayay waa wejigii soomaaliya dunida ay ka arkaysay ixtiraam badan baa waxaya ninkaas hadal uu yidhaa kuu sheegaa muhiima nin qiimo badan weeye wuxuu yidhi lax walba meeshay isdhigta ayaa lagu qalaa fariin buu soomaali u diray soomaalidu fariintii isagaa yidhi weli ma arkinin qof soomaali ah xilligaas siyaasi ah haddaad taleefon ku hadashaan iyo haddaad waraysi isku timaadaan karti ula inuu yidhaahdo adeer meesha annagaa isdhignay يعني نكاس كم مشغول إثيوبيا يزنه هذا أنا بقول في المرايد على سكوف فيرين قدرين بدل ما هي شكل مركب واحد عادي نكاس كليبتي يرتاهي مركي أو كعي أنا موجين كاميرا مانك أو يبير برامج كليب يربع دومتي وقلت له حالي وزير وحرمنا إن أنت يرتاح حلقة كذا على ورئيسي كنت سبع سنين كفتن كا إن السود دينو si aanu dadka isoo jiito ay u diyaar garoobeyso maxaa ka qabta wuxuu yiri waa hadalkiisa uu yiri wali wax xasuustaa wuxuu yiri waxa aanu Mareykanka ka yimid wiil xal yiraahdo hot mic erayada mikrofoonka ayadoo loo diyaarinayo dhacaweeye habi waan ku ay siidaa waa siideyn intii yartaan siideyn barnaamijkii waxa dhacday in la joojiyay barnaamijka dhan lama soo deeynin ilaa haatan barnaamijka lama soo deeynin sababta loo soo deeynin waayna waxa jirtay faragelin toos ah oo dawladda ka imaanaysa barnaamijka loo soo deeynin waayay marka waraysigaas sidaas ku dhamaaday laakiin waxa waraysigaas dilay hadalkiisa yarkaha aan islaan dadku soo jiita marka hadda kadib hadii uu hadal qof ka dhaco aad baa uga fiirsanaya in hadalka la soo daayo hordhaca iyo la soo deeynin marka saas dhacday laakiin marba macluumaadka waxay laakiin عبد السلام حضلية حالات أدقنا ويكوشقينيين لكن نكاس وعنين سوماليات جحدنا أي كجيجة سومال نوع شرف بكلام آية marka ma aad arkin qasaar wax ku dhax marka ما ولي البرنامج كان لمسه الدين يعني ما أورنين حبيرات المدعين ما شاء الله طبعا adiga dad wareysan jiray maanta adiga bahashku dabcan qorsatay marka la baqo inta aan ka soo khatimayna bidin Allah ta'ala Allah idin barakeeyo ujeedada barnaamijkan haddaan ku soo celiyo waa tacliin ahaan dhinac walba su'aasha ama jawaabta u dhaceysay waxa dad ka fahantay ama aad dabcan isleedahay waxaasa dabcan idinka dhinaa idinka aan noo sheegay barakallahu fiikum wa jazakumullahu ta'ala khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شيخ محمد هذا كل ما دعينا إلهي كل زي شرفي كلام يدنا استوديو نوع تماديد أنا وذا شاهينه وذا شاكينه ولا زعيم أو بولشة الصومالية كارين ذهب وجرة السوشيال ميديا ضد بدن أو سخر ضد استعمالات جرة ضد كسيدة وناكسين استعمال بولشة أنا وقتي وذا فائدية أيو كارين تكوات كجرة حلنا هاي فضلا كبيرة كورقبة كحرنا هذا أنا كحرن وأنا كفايدة مروربة أقول إيه وعي جنين إيه وحيانا أنا نقول إنه دعه وأسوق الصعود أيام كفايدة خير الله يسيركم. سمعتي يوم حسنت ما شاء الله. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر